الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة بركيسن مات التاريخ دو بشي كوبيت وناد لباتن كيدي ولا بدا كون إيو لباتنك وحان هالكن كجهاد ليا لبا ريموت أرجع كوبادي وحويه حسكي loogu sameeyay gaaladii askarta ahayd ee Ingiriiska ahaa ee ku dhintay dagaalo hore xuskaas oo lagu sameeyay magaalada Hargeysa iyo waxaan kaloo ka hadlayaa laba lamaane ama laba qof oo dadkeena gaalaysiinayay galka waxa ay dawladdu ka yeeshay iyo arrinkii halkuu ku dambeeyay iyo sida loola dhaqmay galkaas ayaan ka hadlayaa insha Allah marka labada arrimood ayaan idin la wadaagi doonaa biidin Ilaahay kariim warbaahinta bulshada waxa aad ku aragteen sawirro muxuu ahaayay ku faafay oo ay ka soo muuqdeen dad isugu jira gaalo iyo dad islaam ah oo wada xusaya xus loo sameeyay askar Ingiriis ah oo ku dhimatay dagaalo hore xuskaas oo ka dhacay magaalada Hargeysa gaar ahaan xabaalaha gaalada ku yaala magaalada Hargeysa halka maxaa ka dhacay waxa dhacay xus baa loo sameeyay laga hadlayo kaalintii ay ku jireen xuska marka cid la xusayo waa cid la maamuusayo la sharfayo la karaamaynayo wanaagoodii laga hadlayo goobta xusku ka dhacay waxa weeye xabaala gaaleed oo ku yaala magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay ashxaas aynu sawiradooda ku aragnay baraha bulshada oo taagan waxaana loo qaybiyay qaybna way fadhiday qaybna way taagnay dhiganayaal yar yar baa loo qaybiyay oo aanan garanayn waxa ku qornaa oo akhriyay taariikhda baa ku qornay ma dhacdadan muxuu ahaayay laga sheekeynayo arrin ku saabsan oo dadka muxuu ahaayay lala socodsiinayo waxa maanta la isugu baa ku qornaa adigu bugaag baa la akhriyay halka waxa weey waa la xusayay ubaxyo ayaa la saaray meel taala ubaxyada waxa saaray niman gaala iyo askarteeni askari baan ku arkay iyo nin kale oo sii jeedo Soomaaliya wax la leeyahay garanay ayaa kamid ah dadkii ubaxyada muxuu ahaa saaray arrinkaasi muxuu ka dhigan yahay xuska noocaasa muxuu ka dhigan yahay ama maxaa uu ina tusinaya horta marka ugu horeysa waxa weeye gaar ahaan intii muslimiinta ahayd ee halka tagtay runtii waxa weeye gaf bay sameeyeen gaf diimeed bay sameeyeen oo dambi bay ku dhaceen dambigay ku dhacayna waxa weeye arrin Ilaahay naga reebay ayay sameeyeen oo muxuu Ilaahay naga reebay wuxuu inaga reebay inaynu ku tukano gaalada ku tukano oo qabrigoodana muxuu ahaa dul istaagno waxaan ay gaaladu sameeyeen salaad bay ahayd xuskan ay sameeyeen gaaladu haba inoogu yeedhaan inaga laakiin salaad bay ahayd duco kelmadda salaadina waa duco marka alle wuxuu xaaraantinimeeyay culimaduna way bayaamisay Ilaahay khayr ha ku abaalmariyo Sheekh Dirir ayaa bayaamiyay suurata at-tawba Ilaahay wuxuu ku yiri bacda a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi ورسوله وماتوا وهم فاسقون
ayadaasi waxa laga faa'iideysanaya oo Ilaahay inoo sheegaya oo inaga reebaya in aan ahad kamida gaalada dhinta in aan lagu tukan abada marnaba iyo sinaba loogu tukan ولا تقم على قبره وقبرgiisa la dul istaagin sidii qabrigiisa qubuurtooda loo dul taagnaa ولا تقم على قبره قبورتودana inaan la dul istaagin maxaa yeelay innahum kafaruu billahi wa rasuulihi wamaatuu wahum faasiquun cilladu waxa weeye gaalimay ku dhinteen iyo fisqi marka xaaraan bay ahayd arrin xaaraana oo ilaahay reebay ayay sameeyeen dadyowgii halkaa tegey ee ka soo muuqday ee aynu ka garanaynay saddexda qof baynu ka garanaynay midi waa Faysal Cali Waraabe midna waa Adna Aadan midna waxa weeye Baashi ninka la yiraahdo danjiraha Soomaaliland u fadhiya Kenya saddexda qof baa la garanayay Baashi waliba wuxuu ku qoray Twitterkiisa oo waan arkay waan soo booqday isagoo arrinka amaanaya oo la sharaf bay ii ahayd inaan ka qayb galo isla markaana ducaynaya wanad boqon kartaan Twitterkiisa marka horta arrinkaas wuxuu ahaa gaf qodobka labaadna waxa uu ahaa arrinkaasi weynayn iyo sharaf la sharfayo la maamuusayo duulaankii gaalada ahaa ee inagu soo duulay iyo maamuuskaasi wuxuu ka dhigan yahay kuwii kale ee ka hor imanayayna in qiimahoodii ay inoogu fadhiyeen hoos loo dhigay dadka booqashadaasi ama xabaal dul istaaga gaaladu saasuu micnaheedu yahay dadkan iyay haayeen la maamuusaya waxay haayeen waa gaalo ina soo weerartay waa ingiriiskiina soo weeraray ghuzaat bay haayeen dad la dagaalansan maxaa inoo keenay wax maamuusaya karaamo aynu ugu leeyihiin ma jirto dhulkeennii bay inoogu yimaadeen intay ka yimaadeen qaaradda Yurub markaasay diinteena la dagaalameen dadkeena diintooda ka bedeleen ku dadaaleen inay ka bedelaan waxa weeye wax naxariiso ay noo hayeen ma jirto isticmaalka dawladuhu ma amaanaan gumaystaha ma amaanaan anigu ma garanayso saynu uga qayb galayno muxuu ahaayay xuskooda nin aniga soo duulay oo dadkaygii leynay Sheikh Bashiir bay intay dileen ayaa meydkiisa halka la dhigay magaalada Burco oo cid u imaweyd raggii Sheikh Bashiir dilay la dagaalamayay sayidka iyo ciidankiisii u dagaalamayay gobonimadeena u dagaalamayay ragga iyo daraawiishti iyo rag badan oo mujaahidiin ahaa oo jihaad fi sabiilillah ku jira la dagaalamayay ayaynu amaanaynaa ama maamuusaynaa taariikhda ayaa gaf ay ku tahay taariikhdeena sooyaalkeena ay gaf ku tahay in la bedelo taariikhdeena oo yani cadowgii la amaano cadowga dhabtahay waa ka maxaa dhacay haddaba markii arrinkooda ashkhaastaas laga hadlay ashkhaastaas Soomaalida ah ka qayb gashay xabaalaha gaalada markii baraha bulshada yani lagu dhaliilay oo ay arkeen mawjadii dadka oo ay arkeen culimadii oo ka hadlaysa ayaa halkii ay gafkooda garwaaqsan lahaayeen ay la soo istaageen asraar iyo inay ku kacaan ay dadkii wax ka sheegay cadow ku sheeganba dadkii ku dhaliilay booqashadaas ayay yiraahdeen ba waxay hayeen cadowga Soomaaliland maxaa Soomaaliland meesha keenay maxaa keenay muxuu mid kasta marka lagu qabto khaladkiisa uu ugu cararaya qarannimo iyo muxuu ahaa qarannimo la weeraraya maxaa qarannimada Soomaaliland meesha keenay dadkani waxay hayeen dad reer Soomaaliland iyo dad islaama oo ka xumaaday ashkhaastaas aan ku ogeyn muslimiinta inay gaalada la xusaan intaas ka xumaaday waxay ahayd dad yowgaasi inay muujiyaan oo ay gafkooda qirtaan bay inay yiraahdaan khalad baan ku dhacnay sidaas nagamay ahayn oo annaga lafteedu wanaag baan ku ogeyn ashkhaas halka ka soo muuqatay sida Faysal Cali Waraabe kale anigu wanaag baan ku ogaa xagga diinta tooniga mu jirin Faysal siiba Faysal
aniga wax tuhno igaga jira ma jiro oo waxa weeye xagga diinta inay muxuu ahaayey igamu jirin waxay ahayd Faysal ciddii difaacaysay qaabka ay u difaacday qaab khaldan buu ahaa ma yahayn inay khaldameen bay ahayd aayadda qura ku fulay dadka bayaan eegin wala tusalli ala ahadin minhum مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره نهي قاساكم في الله إني مركي أركان إني قفين أي هذا هو المخلطن آيات سنة قبطي لكن إني هذا عدو سومالي الآن با أي أرهن كان مو هاي سو ما عدو سومالي الآن خلط باد قشان واحد ما مستن مو هاي قالدي marka arrinkaas waxa weeye waxaan u soo jeedinayaa ashqaastii ka qayb gashay waxaan u soo jeedinayaa inay madal guud bay kaga qayb galeen xus gaalo gaf bay galeen waxa weeye inay saxaan khaladkooda si guud u saxaan madal guud bay ku khaldameen madal guud ha ku saxaan maaha saa ku dhaaf mayso shirkii jaraa'id ay qabteen iyo hadaladii ay yidhaahdeen lagu dhaaf maayo in lagu dhaafana maaha maxay u dhacaysaa in arrimaha aan diinta ahayn loo weyneeyo arrimaha diintana muxuu ahaye sida fudud muruun alkiraam muxuu ahaye lagu dhaafo taa halkaasaan muxuu ahaye ayaan muxuu ahaye ku dhaafaya waxaa kaloo jira bishii 9aad 10keedii dambe booliska Somaliland gaar ahaan qaybta baarista dambiyadu waxay noo sheegeen inay qabteen magaalada Hargeysa ku qabteen 2 lamaane oo faafinayay diin aan diinta islaamka ahayn si kale aan u dhigo gaalaysiinaya dadka ayay sheegeen waxay yiraahdeen sharcigan muxuu hor keenayna koobiyuutarnaad markii la soo gaaray 2 maalmood ka hor ama maalin saddexaad waxa dhacday inaynu maqallo labadii lamaane waxa weeye waa la masaafriyay labada lamaane oo yaani warbaahintu sheegtay inay ka soo kala jeedeen waqooyi iyo koonfur gabadhuna waxay ka soo jeeday halkan Somaliland ninkuna koonfur buu ka soo jeeday maxay ku dhacaysaa in ay dawladdu laba qiyaasood kula dhaqanto dadka dambiyada gala maxaa hal qiyaas loo marin waayo maxaa loola xisay sidee loo siday dadka arrimaha aan diinta ahayn hebel buu dhaliilay iyo hebel buu yarmaaga iyo arrin adduun qof sameeya sanada lagu xukumaa way buunbuuniyaan way cadaadiyaan laakiin arrin diinta niman ama qolo waday gaalaysiin maxaa loo haayo siday واسكا سيدين waa مسافرين say ku dhici kartaana in la masaafiriyo xitaa qof halkan u dhashay say ku dhici kartaa in la masaafiriyo macaqliba sharciyeeba keenay in masaafiriska noocaas marka waxa weeye waxa jira laba qiyaasood oo dadka muxuu ahaay runtii lagu la dhaqmayo marka waxaan leeyahay ama aan u soo jeedinayaa shacabka war cid diintiina idin ilaalinaysa ma jirto qof kastooba diinta adiga gaar ka haya waxayna yiraahdaan qof kastooba nabadgelyada gaar ka hayso ma nabadgelyada ku wareegaysan Soomaa annagu waxaan leenahay war qof kastooba adaa muxuu ahaay diinta muxuu ahaay gaar ka away kaalintii dowrkii wasaaradda awqaafta iyo diintu wasaaradda awqaafta iyo diintu kaalinteedii meeday guud ahaan kaalintii culimada guud ahaan ka hadlayno mid iyo laba ka hadlayno guud ahaan waxaan dhacaya ee dadkii acyaantaha ay sameynayaan maxay uga hadli waayeen meelay gudida wanaag farista ee ku kaatay isla joogta waxay ugu yeedheen lab iyo dhadig la raadinayo meel taagan kaliya taa ma diidayno in wanaaga la faro oo xumaanta la reebo laakiin diintii waxay ku soo koobantay intaas kuwan maxay uga aamusayaan ma sidii reer bani Israa'iil baynu noqonnaa
kooda madaxdaana in laga daayo markuu gafku galo kooda muxuu ahaayay daciifkaana muxuu ahaa xadka lagu ogo intaasaan ku gabagabeynayaa waana salaamantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته